الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسلك سعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبطلون. وبعد، ولا ليال ولي waxaanu bartamaha uga jirnaa taariikhdii ama siiradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxayna noo maraysay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jiray da-dii 12 oo xilligaa wixii ka dambeeyey bilaabay inuu nabigu shaqaysto calayhi salaatu wasalaam oo qofna uusan gacanta u hoorsan. waxaanu gelaynaa marka ka tegidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay ar-ilaalintii oo haddana uu wareegay atijaara bimaali khadiija wa zawaajihi minha. inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ganacsi uu u wareegay oo arigii uu iska daayey oo haweeney la dhihi jiray khadiija bintu khuwaylid inuu maaragtaay maalkeeda usoo gedgedin jiray oo ilaa shaam uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolaha uu ka soo iibin jiray, lacagna uu ka heli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam tijaaradaa uu gedgedinayo. dibna uu u guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam haweentii hantida ku aamintay ee khadiija. taas ayaanu geli doonaa, laakiin waxaanu jecelnahay walaalayaal inaanu casharkeenna maanta ka soo hormarino maxabatu rasuulillaahi sala allahu wasalam calayhi, jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabiga in la jeclaadahay inay ka mid tahay waxyaalaha waajibaadka ah haddana ay tahay xataa qayb iimaankaaga ka mid ah inaad nabiga jeclaato sala allahu wasalam calayh. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu booriyey jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna yidhi alle qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa azwaajukum wa cashiiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وغير الله سبحانه وتعالى حبيء آبياشين إيا ولشين إيا ولالين إيا هجين إيا قرابين إيا حولين إيا قناعسية intaas haddaad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jihaadka, saddexdaas haddaad xoolihiina ka jeceshihiin iyo carruurtiina iyo aabbayaashin aad ka jeceshihiin suga markaas, macnaa dhibka idinku dhici doona suga. ilaahayna ma hanuuninahayo subxaanahu wa tacaala qoom faasiqiina. marka aayaddan aakhirkeeda ayaa waxay tilmaamaysaa qofkaan nabiga jeclayn calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qof faasiqa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan wadada toosan iyo tubta toosan uusan ilaahay ku hanuuninayn subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo aayaddan ay tilmaantay in nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ka jeclaato xataa aabbaha, xataa wiilasha aad dhashay, xataa walaalaha, xataa maaragtaahay raggaaga iyo qaraabadaada iyo xoolahaaga iyo ganacsigaaga dhan iyo naftaada dhan inaad ka jeclaato nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa aayaddan ummadda ku buurisay. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddii ugu gabagabeeyey oo ku dhammaystiray hanjabaad oo ah fatarabasuu xataa ya'tiya allahu biamrih, sida ilaa ilaahay uu kala yimaado arrinkiisa. haddaad ka jeceshihiin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalkiina iyo aabbayaashiina iyo carruurtiina aad ka jeceshihiin. wuxuu ilaahay aayaddii haddana ku khatimay inuu maaragtahay faasiqiin uu ka dhigay dadka aan nabiga jeclayn calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ilaahay u sheegay dadka inay ka mid yihiin dadka lumay oo ilaahayna uusan hanuunin dadka aan jeclaanaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa imaamu albukhaari uu saxiixiisa ku wariyey mar uu ka hadlahayey jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin. axadkiin ma rumaynahayo buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. iimaan fiican ee saafi ah ee toosan ee kaamila lagama helayo ilaa qofku uu iga jeclaado carruurtiisa iyo waalidkiisa iyo dadkoo dhan aniga uu igu jeclaado buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka xadiidka ayaa walaalaya waxaad ka garan kartaan in iimaankeenna
وكحرا يهي إنه النبي كجعلانه عريرتنا يوالدتنا يماركتاهي هانتينا يددكو بل أنه كجعلانه النبي عليه الصلاة والسلام taas ayaa kamida qaybaha iimaankeena uu ku kaamil noqon karo ama uu ku buuxsan karo kamid waxa kale oo cadeeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood qofkii laga helo in diinta ay u dhadhamayso iimaanku uu u dhadhamayo cibaadadu ay u dhadhamayso ayuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waana midda hadda walaalayaal dadka dhan ay baadigoodayaan oo musiibad uga dhacday xalaawatu taaca xalaawatu iimaan ayaa lala yahay walaalayaal maxaa kalifay walaalayaal salaada inaanu ka weysanayno oo jamaacada masaajida aanu ka weysanayno inaan ku tukanno maxaa kalifay inaanu ka weysanayno inaanu quraanka maaragtay ku dagaalno oo 24 saac quraanka akhriskiisa aanu badino inaanu adkaarta akhrino oo ilaahay xusno maxaa kalifay waxa kalifay kaliya waxa weeye waa faqdu da'm al-ibada wa halawatiha cibaadadii ayaa noo dhadhamaynin cibaadadii ayaa noo macaanayn cibaadadii ayaa culays malaha walaalayaal marka waxa uu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam cibaadadu inay u macaanaanayso qofkii saddex arrimood laga helo oo wax walba uu kala jeclaanayo tan ugu horreysa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu qofku ka jeclaado wixii ayaga ka soo haro dhan wixii ayaga ka soo haray oo dhan waa inuu ka jeclaado marka jacaylka ilaahay iyo jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mida waxyaalaha walaalayaal cibaadadu ay noogu macaanan karto laakiin jacaylka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma aha kaliya walaalayaal inaanu afka ka sheegano oonu nidhaaho nabigu waan jecelnahay maca daalika waxyaalihii nabigu calayhi salaatu wasalaam ha samayn uu ku yidhina aad samaynayso wixii samee uu ku yidhina aad ka harayso oo tiraado haddana waa jecla war qofka haddaad jeceshahay amarkiisa waad qaadataa qofka haddaad jeceshahay waad isku daydaa sida aad tilaabihiisa iyo dhaqankiisa u yeelan lahayd marka waxaan meel isla gelaynin inaad tiraahdo nabigaan jecelahay calayhi salaatu wasalaam aadna khilaafsanta ee dhaqankiisa aadan haysan meel islama geli karto arrinta labaad ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo cibaadada macaankeeda lagu heli karo inay tahay wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah وإنه وحي النبي عليه الصلاة والسلام قفك ولالك أي مسلمك أرجع اللهته قديما أرجع اللهنا من إلهي الدبت مويه وحمانت ملكينا إبادة بدن كذي إبادة ما قلنا عن لا هاي وحول المسلمين تتعايلك بحلة يلي أي الله يهي كربندينتي إيا كرامتي إكرامتي المسلمين تيس كرامين لهايين إيا إيثارتي المسلمين تي أي اسكد دوري لهايين ويبيه لهايين وحنا نقوى عن حناهي walaalkay uu ku fiican yahay ama labiskan anagu aan haysto walaalkay ayaa iga habboon oo ku fiican yahay iisaarka muslimiinta ay samayn jireen ayaa la waayay maanta maxabadii ama jacaylkii muslimiinta dhexdooda ay jeclaan lahaayeen ayaa la waayay taasoo ay ka dhalan lahayd in nabiga la jeclaado calayhi salaatu wasalaam bal isjeceli maanta way jiraan muslimiin fara badan ee isjeceli maanta way jiraan oo wax walba maaragtaahay isku samaynahayo iisaar oo ninkuu jecel yahay intadii asagu uu cuni lahaa inuu midka kale asagu cuno oo wax walba khayra la jecel laakiin maxay isu jecel yihiin walaalayaal ilaahay dartii ma ah maanta waxaa la isku jecel yahay walaalayaal casabiya iyo qadaniya iyo xisbiya iyo kooxnima la isku jecel yahay ad garanaysa qofku markuu qofka kale jeclaanayo maanta ilaahay dartii kuma jeclaanayo wuxuu ku jeclaanaya waa igu qabiil aadaanu ka wada dagaalanaa siyaasadeenna midaysan saasaan isku jeclaanayna waxaa dhici karta inuu qofkan u naco cibaado ku nici maayo oo laga waayey ilaahay amarkiisuu khilaafay ku nici maayo ugu qabiil maaha inuu ku naco ayaa dhici karta waxaa dhici karta qofku maanta sida aanu arkayno oo indhaheena aanu saarnay inuu ku jeclaado casabiyad iyo qadariya xataa hadduu taariku salaad yahay xataa hadduu amarkii ilaahay dhabarkiisa uu ka tuuray wuu jeclaanaya si ugu qabiil maaha mar walbaba waxaanu arkaynaa inuu ku jeclaanayo qofku muslimiinta maanta ay isku jeclaanayaan kaliya kana waa igu siyaasada waa igu mabda qaar waxaad arkaysaa isku jeclaanayo kani kooxdaydu ka tirsan yahayo xisbigaygu ka mid yahay axzaab diini ah ayaa la aasaasay oo maa anzala allaahu biha min sultaanin ilaahay wax xujo ah uusan u samaynin wax xujahana ilaahay uusan u soo dejin subxaanahu wa tacaala oo magacyo fara badan laga baxay
وروحات إسلامك ما قبل له وروح على رواقفك المسلم كواحد وجه الله عليك أنا وجه حزبيه معه أنا وجه سياسيه معه أنا وجه قبيلي وجه عصبيه معه إلهي درتي وإنا تجع الله ولا لي هذا يعني كل كرنا بعمل العبادة هي حلاوة الإيمان أيام كل كرنا ولا لي مدة تدحات والنبي يقول شيء عليه الصلاة والسلام من عبادته قدم كذا الويل كالإيمان كبدن فيه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغرس في النار وأنا قفت قال لماذا أمعه سيدا أمعه إن بقى لبطهور هركات وين قال لماذا يكجوكت قال لماذا وأنا كل أبيهي إن سيدا وين أبيهي إن بقى لبطهور وكل هذا يا مسلمين أنت إذا بغني أي ما أنت حزمنا النبي عليه الصلاة والسلام هي أوامرك النبي يكفي جيستين maxay waxaan arkayna dadku inay iska doonayaan dalku haba ku jeclaado maanta dadku iska doonayaan dalku haba ku jeclaado foodi ayaa waxa loo jartay sida maaragtay shimbiraha foodda oo kale ayaa foodi loo dheeristay baadiyaha waxa jira shimbir la yiraahdo alifid oo foodda la bax aqliga intuu umadi ka yimid ayaa sidii xayawaanka walaalayaal food la distay xayawaanka ayaa food la distay intaas walaalayaal وقالوا أي دولة وقفكني إنه بغن في سياشو وقالوا وسوء ذكيسيه وقالوا فيات كودي وراءه تاس أيها المرواك تاس أيها قفك في البحر واك سيدي قفك مركو أجرته سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أجرنجري أصحابته يتنك أجرنجري هدوه أجرته وحوارك قفك إلا عدم يجيس انت اللي غلمي أي وحوارك بقدع إليتها فوت شيطان هدين البيستانة وحوارك غير مياليين من التاسي جفته فالهيرك ولا ليال أنا مري منهم وأنا ماشي لديها قالك إيا بغن كيسة إيا عادديسة كل إلي مرفتها كوسة قرمة وقرم أبو عرفته أيها لغد مركز صدح ياس الرمض أيها الوهر أبو يرمضه عليه الصلاة والسلام إيمان كان معان كيسة إيا بغن كتعالى وحكرا لغوري سيدنا عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يري النبي وكل سيد عمر لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي والنبي سيدنا عمر سيد النبي الله بالله يكيري فسلت إلهي وحك استوان كاجي على إلا نفت بلعي وكجست معه انت كلام كاجي لكن نفتي إذا أولى نفتي إذا انشاء على أيوه سيدنا عمر مركز النبي عليه الصلاة والسلام لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه warqood adinka idin ka mid ah yiri laana helayo iimaan taasa ee wanaagsan ilaa aniga iyo naftiisa oo aniga iga jeclaada buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam sayyidina ayaa markaa yiri walladhi anzala alayka alkitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna janbay waxaan ku dhaartaa buu yiri sayyid umar allihii kitaabka kugu soo dejiyay naftayda xataa waan ka jeclaa ونفتي بإيادية أبيان كتالة مركز النبي كير عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر وحير هدى أي إيمان كاملة أو وناكسن قارئة هدى لغاها ليبير ليش اللي هدى مرسى سيد عمر تخيرنا ولا مياه وحكينا هو كلفة هي نفتى إيا النبي فالفير الدين كإسلام كوحي قطع سيدا حديث كان هذا عن كسوة قادمي نفت هذا كوجبته هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا النبي محمد شاء الله الهيرك اللي جاء فيه النبي جاء إيجا ولا الله وعطاك النفة هي مرة النبي النبي عليه الصلاة والسلام نفت هذا وكايد بجال البنين مركا وإلا نفت هذا كجع الله محايل نفت هذا محايل جاءشا بلدي يسكنترول نفت هذا محايل جاءشا إن صلاة أذن فكر خيرات كنا نتقيد قلب إن هذا الصلاة كلهم يسوقين إن هذا المسجد كتبعانا تقيد غالب إن هذا القرآن برد إن هذا العلم برد إن هذا أوامرت الله الفريد أي نفت هذا جاءش هاي وحا مركا نفت هذا جاءش سهلاء جاء جماعة لكن نبي خيرات كاسة بل تكون الداد له أي كويت عليها سجن مركا نفت هذا إسجاء كالفي عن النبي عليه الصلاة والسلام فكإله يقول سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وحيد الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين المؤمنين ووهب وناشد ليه من أنفسهم نفسه نفسيال كده ووهب وناشد ليه أيوه الله سبحانه وتعالى
marka hadda ka hor ayaa nin u yimid nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi mata saaca rasuulka ilaahayow saacadda qiyaamuhu goormay dhacaysaa buu yidhi wuxuu yidhi markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa acjabta lahaa oo saacadda qiyaamaha maxaad u soo diyaarsatay maxaa kuu diyaara markaad su-aalayso saacadda qiyaamaha wuxuu yidhi ninkii maa acdadtu laha min kasiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulah rasuulku ilahi anigu saacadda qiyaamaha salaad badan iyo soon badan iyo sadaqo badan uma aanan diyaarsan laakiin waxaan isku hallayn buu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan jeclaha markaasuu rasuulku u jawaabay uu yidhi sala allahu wasalam calayhi anta maca man axbabta ruuxaad aada jeceshahay ayaad micigiisa noqon buu yidhi ood la jiraysaa ruuxaad jeceshahay ayaad la jiraysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas ayaa wuxuu bishaaro u noqday asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay asxaabta nabigu way isku kalsoonaayeen wayna ogaayeen in maaragtahay iyagu ay jecel yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay xaqiiqsadeen maadaama nabiga ay jecel yihiin in nabiga micigiisa iyo la jiritaankiisa maalinta qiyaamaha ay noqonayaan waxaa kaloo xadiiskani hanjabaad ugu yahay dadka gaalada jecel iyo dhaqankooda iyo sida gaalada ay u shanlaystaan siday u jartaan siday u labistaan dadka dhaqankaa jecel xadiiskani hanjabaad ayuu u yahay maxaa yeelay qofka aad jeceshahay ayaad aakhiro safkiisa soo mari doontaa haddaad adigu gaalada dabada cad ee maaragtahay quranka ah ee lacnada ilaahay uu ku dhacay haddaad labiskooda iyo qaafkooda aad jeceshahay aakhiro safkooda in ku soo biiri ee adigu kala dooro safka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku soo biirtay safka mu'miniinta iyo safka gaalada in laga soo xaadiriyo maalinta qiyaamaha marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa hadda ka hor nin baa haddana u yimid wuxuu yidhi yaa rasuula allahi la anta axabu ilaya min ahli wa maali وإني لا أذكرك كما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلتها لا أراك فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من لا يغير سيدة يرنها شيخ اللي يراه قاضي عياض سنة كيسة وكوري كتاب كيسة اللي يراه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مما النبي يقول عليه الصلاة والسلام مكاسي يريد رسولك إلهي أهل كيدة إيا مال كيدة وان كاجع الله يقول وحوله أهل كيدة بل أليهم كجعله وأنكو حسيت كادوا يركامنا الصبر كروا إلى أن كونوا ما بصفر فرصر الله أكبر الخير ولا ليه وأنكو حسيتنا يا بوير مد القادة كربوير إلى أن كان كإماده وجد يقال له شرفت قبل أن كثير صبر مكاسا حوضات بجه يا بوير مكاسا وأنا حسيتنا بوير إيه جيريون هيو أبيغن عد جيريونش jannada haddii aad gasho waxaan xasuustay buu yidhi booska nabiyaashu degaan in lagu geynahayo oo aanan dib indhaha aanan ku saarayn markaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayad qur'aan ah uu soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim dadkaa ilaahay iyo rasuulkiisa adeecay waxay qiyaamaha la jiri doonaan aakhira ay la joogi doonaan nabiyaasha iyo kuwii rumaynta badnaa iyo shuhadadii ilaahay dadkii u geeriyoodeen iyo saalixiinta dadka wan wanaagsan oo rafiiqoodu wanaagsan yahay dadkaasay micigooda noqon doonaan aayaddaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ku dul akhriyey xadiiskii anas uu warinayay ayuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam man axabanii kaana macii fi ljanna qofkii jeclaada buu yidhi jannada ayuu ila gelhayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaanu wax ka taaganno asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo salafu saalixiin sida ay u jeclaayeen
nabiga calayhi salaatu wasalaam bal taariikhihii ummadihii hore aanu dib u milicsano bal sida ay nabiga ku ahaayeen calayhi salaatu wasalaam waxaanu tusaale u soo qaadan karnaa ninkii cajiibka lahaa ee la oran jiray khaalid ibni macdaan waxay tiri gabadhiisii oo ka sheekaynaysa maa kaana khaalidun ya'wi ilaa firaash إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي قال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم وحيث آبه خالد بن معدان لا ينجر فراش كيسا مركو آله أو سيحلها هذين كستيحوا الشيخ سيجي جري sida uu nabiga ugu hilaysan yahay oo nabiga uu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii nabiga muhaajiriinta iyo ansaartii wuxuuna dhihi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waa asalkaygii waa fasalkaygii qalbigaygu xaggooda ayuu u hilaysan yahay ilaahay si degdega nafta iiga qaad si aan u haleelo nabigayga calayhi salaatu wasalaam ilaa markaa hurdadu ay ka adkaato ayuu nashiidka ku celcelin jiray khaalid ibn macdaan waxaa kaloo tusaale aan usoo qaadan karnaa haweenay ka mid ah gabdhihii nabiga la noolaan jiray calayhi salaatu wasalaam ee ansaartii ayaa waxaa la dilay ninkeedii iyo walaalkeed iyo aabbaheed dagaalkii uxud ayaa lagu dilay waa loo sheegay waxaa la yidhi aabbaha waa la dilay waxay tihi maada facala rasuulu llahi sala allahu wasalam caleyh war aabbaha rasuulku muxuu sameeyey walaalkaa waa la dilay war rasuulka iiga warrama ninkaagii waa la dilay war rasuulka iiga warrama ayay leedahay mar walbaba haweentaas ay ku celcelay waxaa kala qaalisan sidii diinku amraysay shareecadii la amraysay aabbaheed iyo ninkeedii iyo walaalkeedii waa saddexda loogu jecel yahay iga daayay tiriye rasuulkii iiga warrama ma nabad qaba isagii dagaalkii ka soo badbaad dadkii waxay yidhaaheen khayra huwa bixamdi illaahi kamaa tuxibiin nabiguu fiican yahay sidaad jeceshahay weeye nabigu waxay tiri intaa kuwa qancahiye arinii xataa andura ilayka itusay tiri nabiga aan fiirsado oon hugsado inuu nabad qabo isagoo dagaalkii ka badbaaday markay nabiga aragtay calayhi salaatu wasalaam ayay tiri kullu musiibatin bacdaka jalal yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow musiibo kasta ay ugu dhacdaay adigu haddaad nooshahay waa iska yartahay bay tiri marba haddaad adigu ii nabad qabto ood ii caafimaad qabto musiibo kasta ee ugu dhacda bay tiri ma xasuusanahayo oo wax yar ayay ii noqonaysaa bay tiri musiibadaas allahu akbar sidaas ayaa gabdhihii saxaabiyaadka ahaa oo diinta fahmay sidaas ayay walaalayaal ahaan jireen mar la weydiiyey sayidina caliy bn abi aalib waxaa la yidhi kayfa kaana xubukum lirasuuli illaahi sala allahu wasalam caleyh sidee nabiga u jeclaydeen baa la yidhi wuxuu yidhi kaana wallahi axaba ilayna min amwaalina wa awlaadina wa aabaa'ina wa ummahaatina wa min almaa'i albaaridi cala adamac wuxuu yidhi ilaahay waxaa idinkuu dhaartaa buu yidhi rasuulka waan ka jeclayn buu yidhi xoolaheenna carruurteenna aabbayaasheen iyo hooyaalkeen iyo biyaha qabow adigoo aad u haraadsan waxaasoo dhan nabigeennan ka jeclayn buu yidhi sala allahu wasalam caleyh waxaa kaloo laga wariyey zayd bnu aslam sayidina cumar habeen habeenada ka mid ah inuu magaalada wareegahayay xilligii uu madaxda ahaa wuxuu arkay fayniis ka shidan guri oo haweenay cajuusaa hawaayeelah ay derin ay xasabo samaysanayso suufay ku samaysanayso guriga waxayna leedahay intay suufka samaynayso calaa muxammadin salaatu alabraar salla calayhi tayibuuna alakhyaar qad kunta qayaaman bukan bilasxaar yaa layta shicrii walmanaaya adwaar hal tajmacunii xabiibiy addaar
صوفك إيه سنة سنة حيلادها وحل سيد عمر صلى الله وسلم عليه وعلى كلمة محمد تكينا سنة بحيالك صلاة دودة إن حريص ضرب عيان بيش يسأل الله عيان تكينا سنة هكو صليان مرة البوء وعلى هذا كلمة محمد عليه الصلاة والسلام هيرتي من الإستاذة قررتي إيه أياد عيد صليتني يدي أنا يا حبيبك يدي بالكلمة محمد عليه الصلاة والسلام دارت آخره من كل مدة أنت هذا حتى ما كون أركض دونان يتر رسولك يجي حبيبك يجي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي يتر السلام صدق أي مشيتك أكو عليه سيدنا عمر وفر سيدنا إيه هي بيسنة هي هوانته وحيسوحة سيد نبي عليه الصلاة والسلام سيدي هذينك صلاة التاجمان جر أريد وويتي يا يجي النبي عليه الصلاة والسلام أي سوحة سيد مركز أي أمير ولا فريست مركز النبي أمان كان أي أولا ليالي حتى قصة تاريخ لا تدري متكا إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي إذا أماني جرين مصري يقبل إنكرا أي كو أماني جرين قفكي النبي أمانتنا عليه الصلاة والسلام انتهي إياه oo ka qiiroodaan oo nabiga wanaaggiisa uu ku soo dhaco ayuu maaragtaa la fariisan jiray ma aha hadda sida dadka qaarkii ay samaynayaan oo nabiga markii la amaano calayhi salaatu wasalaam ama gabay lagu amaano ay leeyihiin waxaanu bidcay xaggee laga keenay ilayhi ama aad mooday in maaragtaahay musiiba meesha ay maaragtaa uga dhacayso ama maaragtaahay bahal uu ka qaniinahayo oo ka cararahayo amaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam ما أهل أصحاب النبي هديجي أصحاب اللي يسوي جاري ما أهل سلا ولا بي أصحاب هديجي اللي يسوي جاري وقعها إن ما ركتها النبي جيدا يعني ما رهي أما الشيء هكو أمارا أما نفر هكو أمارا روح أمارا هي أي ما ركتها في ألان جري يا سلا سلا هديجي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحاو كريم ورنا هي إمام كان قاضيعيات كتاب كسليرا الشفاء وكو يرمهيا هيري يا عائشة أتنت مركز وحي كتري اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فكشفت لها فبكت حتى ماتت عائشة يتمي هوانت أنا مركز وحي تري مرض إذا قاد تري إيفيت أن أركو قبر رسولك عليه الصلاة والسلام مرضي وقع بهوانت مركز في رسول قبر رسولك عليه الصلاة والسلام إنها يكون فتي ولي صحة صحة مركز اسكاودي ويمتي ليدي حتى ماتت إلى كدمتي فلجي سوى ولا بي سلع المسلمين تنويه الرسالة الصالح أيجي على يوم النبي عليه الصلاة والسلام والفريق سلع الكلام أيها لكدنا هي ولا ليال إن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل عنه وأن يوينه وقلبنا ما ركته يكون يناله وأهل كلمة ينفكنا ومال كلمة يحيى البضع أنه كجعل عنه أي اللوبة هي ولا غير كاكا يعني إلهي سبحانه وتعالى رجلس أن يكورنا وناجنا الدنيا وناجنا آخرة أن يكورنا فانت 10 كاكو سابسا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومقابك سيدا النبي الله جعل عنه عليه الصلاة والسلام يريد اقتناها أي النوم رعيا انت مجدك كل مدونة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.